kulankan oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah u heli lahaayeen marino ay u maraan xafiisyada dawladda iyo hay'adaha madaxa bannaan ee ku sugan Soomaaliland. agaasimaha waaxda naafada ee wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Mudane Mawlid ayaa ka warbixiyay sida ay wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ay ugu hoolan tahay sidii xaqooda iyo xuquuqdooda u heli lahaayeen dadka naafada ah isla markaasina ay wasaaraddu samaysay siyaasad lagu hagayo dadka naafada ah. amba ujeedkiisu ahaa in laga hadlo arrimaha accessibility-ga in dadka naafada ah loo fududeeyo dhismayaasha taas oo markii uu xilligii madaxweyne Siiraanyo 2013 uu ka soo saaray digriito madaxweyne in dadka naafada ah loo fududeeyo dhismayaasha kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa guudba. Mukhtaar Cismaan Maxamed oo kamid ah dalada heer qaran ee naafada Soomaaliland ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. aanu hawsha u fulino xitaa mar baan waxaanu sameynay aanu wasaaradaha u tagnay aanu kuwa hawlaha guud u tagnay aanu isna dhaqaajiya weynoo dhaqaaq weyda run ahaantii waxaan maanta aad iyo aad ugu farxayaa shirkeena waxa ka muuqda inay arintii tahay arin dhaqaaqa sidoo agaasimuhu inoo sheegay muddo waxaan ku 20 cisho inay arintu ay wax iska bedeli doonto waxaan halkan run ahaantii in si xushmad leh aan ugu mahadnaqay agaasimaha guud ee wasaaradda. mid kamid ah dadka naafada ah oo ka tirsan ciidanka immigration Soomaaliland ayaa dareenkiisa ku cabiray la xiriira sida dadka naafada ugu baahan yihiin meelo ay u maraan xafiisyada dawladda iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo goobaha ganacsiga ay dadka naafadii ugu heli lahaayeen dhammaan meel kasta oo ay dani ka soo gasho dawladda masaajidada goobaha ganacsiga ما شاء الله aad baan ugu faraxsanahay shirkii ka horeeyay ee aan ka soo qayb galo runtii xafiiskan sidan u qalabaysan ma lahayn sidan u qalabaysnayn halka aan ka soo galay raam kalena hore kaabadaas uma lahayn aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqaalihii iyo agaasimaha waxna naafada isku hawlay. gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqooyinka arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland. shuruucda wadanka waa cid ugu horeysay fulinaysa hay'adaha dawladda ee kala duwan waxa waajib ku ah inay xaqa iyo xuquuqda muwaadiniinta ay ilaaliyaan inay fuliyaan oo ay diyaariyaan goobihii dadka naafada ay ka soo galeen wasaaradaha hay'adaha caalamiga ah iyana waxaan sidoo kale faraynaa in goobaha ay degan yihiin ay noqdaan kuwo la geli karo accessible oo ah dadka naafada ah hay'adaha UN-ta xafiiska uu sameeyo halka fadhiyo waxaan ka codsanayaa in xafiisyada hay'adaha UN-ta la wadaago in xafiis walba uu yeesho meel laga soo gali karo wasaaradahaana waa dabagalina anagoo wasaaradaha ay khusaysan wasaaradda qorsheynta iyo hay'adaha kaleba adeegsanayna waa soo qiimeynayna in meelaha ay degan yihiin meelo la gaari karo ay yihiin waxaan u baahanahay hodheelada saasoo kale in hodheelada ay noqdaan meelo si raaxo leh dadka ay u gaari karaan oo la fuliyo xaqa iyo marka xuquuqda dastuurka iyo shuruucdeena ay sugeenba inay runtii fulnaayay ayaa ay tahay wasaaradaha waxaanu sameyn doonaa guddi task force oo arinta ka shaqeysa oo ka kooban hay'adaha ay khusayso ee daneeyaasha ah waxayna fariin farayna sidoo kale ee ururada ama shirkadaha ka shaqeeya dhismaha waxaan u baahanahay sharaa'igaas inay guryaha ay dadka u dhisayaan ay ka dhigaan kuwa cid waliba ay gali karto. Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.